burca ka taagan maaha qaylo cusub waa qaylo ka taagan boorama waa qaylo ka taagan hargeysa waa qaylo ka taagan berbera waa qayladaas hantidii qaranka bishii ugu dambeysay sida qayr caadiga loogu takrifalaayo gobolka togdheer iyo magaalada burco oo aan dhowr iyo 10 casho ku suganahay miyigiisana aan u kala baxay waxa ku sugan yahay marxaladii ugu dareed ee intaan ka sheeka qaatay iyo inta aan joogayba ugu dareed xagga sixir bararka oo miliyaysa ay ku mariyo aan dayarto waxba iibsan kareynin xagga shaqo la'aanta xagga dib u dhaca tuulooyinka magaalada burco ku hareeraysan ee gobolka togdheer ka tirsan magaalo kasta waxa ku soo xarooday intaas oo qoys oo cayroobay oo aan dabka waxba saaranin oo cid alaale cid ka warqabtay cid u tagtay toona aanay jirin ilaahay uu sugaaya magaalooyin dhan oo 1000 iyo 2000 iyo dhowr kun oo qof ku nool yihiin ayaa iskuul aan dhacay oo aan wax alaale xitaa laba qol ka dhisnayn MCH iyo goobo caafimaad aanay jirin wax alaale wax adeeg bulshada ka jiraan jirin iyadoo marxaladda gobolka togdheer ku sugan yahay ayaa misana nasiib darrada dhacday ee waliba dadku daawanayaan waxa kamid ah waxa magaalada burco ku yaalay dhul ballaaran oo weyn oo laga kiciyay ciidamada booliska dhulka adeerkay doobciga alfaarax ilaahay ah u naxariisto mujaahid weyn oo dadkii ururka SNM 2018 bilowgiisii tallaabay kamid ahaa inta soo halka ku soo jiray ayaa kamid ah dadkii laga kiciyay board ayaa lagu dhajiyay waraabowtaaga oo la leeyahay waxa laga dhisayaa mool weyn oo 3 dabaqa oo muraayada oo wadada marta 18 tahay nasiib darro wasiirkii hawlaha guud ee koofiyada u soo xidhay arintaasi soo qaban qaabiyay ayaa waxa dhacday inuu habeen madow u jeexjeexay 450 qol oo midkiiba siiyay $60,000 lacag $4 milyan ku dhow ayaa halkaasi habeen kaliya jeebka lagu shubtay waxa kaaga daran oo xaqiiq ah in guryaha uu badh isugu leeyahay badh uu ku qoray rag xisbiga kulmiye campaign-kiisa imika jagooyinka doonaya hargeysa jooga oo waliba deegaanada bilaa iskuulka ka sheekanaya u dhashay oo naxariis darradooda halka ay guriga ka qaateen haddana doonaya dadka inay sida halka ugu hayaan waxa yaab leh shacabkii burco iyaguna daawanaya waa soorayso dadku maxaa ku dhacay sixir bararku halkii ugu sareysay ku maraya shaqo la'aanta ka jirta gobolka ummadda caydhowday xoolihii ka baxeen hantana hantidiisa loogu boobayo waxa ogeeyay xirdhigtii oo laga qaylinayay oo iyadana la iibiyay arrintan moolku waa kiiskii ugu weynaayay gobolka togdheer ka dhaca qarniyadii ugu dambeysay ee waliba loogu indhaadka kuwa iibsaday xaaraan iyo maqdac bay iibsadeen waayo waxa ku qoran mulkiyada dhulkaas oo digreetada madaxweynuhu uu ku qoray lama mulkiyi karo oo waxa la qaranka waxaana laga dhisay moolka iyadoo taa oo yihiin baa rag masaajidada gala oo bacdayaasha haysta ay iibsadeen waxa la rag xaaraan bad iibsateen ka iibiyana xaaraan buu qaato waxba ka faa'iido maayo dawun buu siisanaya waxaan u sheegaynaa oo afka xisbiga wadani ku hadlaya kuwa waxa iibsaday waa anagu waanu ka noqon doona shacabka soo celin doona soo raacay idigu kulmiye ololihiisa ama xaq ayaa guulaysan doona oo ta ilaahay baa guulaysan ama waxa guulaysan doona boobka dhulka ee dadka lagu laalushayo iyo kuwa xaaraanta iibsanaya waxa ogeeyay leeykii bilayska hargeysa intijaar caana oo lacagtiisu ka badan tahayba oo $4 milyan siistay oo kamid tijaarta ugu caansan waddanka Soomaaliland wax soo rasa war dadka ma kuwii haystayba kuwii aan waxba haysan oo waqtiyan kuwii haystana nixmaayaan intii yarad bay dabar goosanayaan waxa la xaaraan bad iibsanaysaan xoolihiina u tudha xisbiga wadani wax allaale wixii qayr sharci ku baxay wax allaale wixii qayr sharci ku baxay ee moolka burco ka mid yahay qayr sharci ku baxay digreeto lagu ansixiyay ma jirto madaxweyne ma bixin dawlad hoose ma bixin oo ku qaylinayay uu ka noqon doona ka doonayay inuu xaaraanta difaaco adigu ololaha kulmiye soo raac ilaahay baanu anagu ku kalsoonahay waanaanu ka noqonaynaa hadday tahay dhulka la boobay berbera hadday tahay dekada berbera sharci darrada sida sharci darrada loo maamulay hadday tahay haamaha sida sharci darrada loo bixiyay loogu wareejiyay dilaalka 4 milyan laga qaatay intaba wadani uu ka noqon doona cidda raacsan oo kulmiye soo raac ee difaacanaysa xaaraantaas waad ku dhacaysaa adiga xaaraantaada anaguna shacabka Soomaaliyeed iyo xalaash Ilaahay baan isku hadlaynaa moolka burcana waa arrin xaaraana wasiirka hawlaha guud bay ceebtaasi dul fadhidaa $4 milyan buu qaad war 100 kun oo qoys ayaa xoolays 2 milyan 3 milyan loogu sameyn lahaa 50 kun oo qoys baa shaqo abuur loogu sameyn lahaa haddii lacagta burco xitaa badna la qaadan lahaa badna burco xitaa lagu celin lahaa caqliga ma gasho lacag saa ku san dadka wada qaatay jeebka wada rido ilaahay baan ka maga galay lacagta ummadda laga dhacay noocaas oo kale ah qofkii qaatayna dawun buu siisanaya kuwa qaatayna waxba ka faa'iido